وحلا قفك وحلا وحلا ويوجي له نيكي وعلم بعوض السماء dad ayaa wax iska heesaysan jiray waa jiraan oo iska bartay wala isaga daba tagaya wixii qaldan dalkan hal dawlad u yeelanaya dawlado isku dhex jira ma yeelanayo hadii ilaahay hal ciidan buu yeelanaya ciidamo rag leeyihiin ma yeelanayo hal dakhli buu yeelanaya dakhli ninba meel uu markaa nimid waxa jiri wax la dhaho nin walba 2% baa meel loo saaro curaaro wax la sheego maalintii ugu horreysay ka takhalusay sababtoo jidadkaani waxaan ma aanan sameeynin hadaa waxaas ku shaqeynayna ciidano hebel leeyihiin maalmihii ugu dabayaaqadeedii baa socotay kulli waas raacayaan dalka iyo shacabka leh dawladda wax inaga dhaxeeya abwaanadii waxay tiri qofkii tagay oo la xusi doono waxaan lagu xusaayaa wax dadka kala dhaxeeya iyo tala dadka dhaxaysan ka tagayna hadii ilaahay taladiina waa inay soo celinay oo idinka dooran doona madaxdiina qof iyo cod baan ku soo celinay hay-adihii dawladana gacanta shacabkan ku soo celinay oo dawladdu u matarayso adaahelano haliya aniyo hormuuda adaa hawl karo hal doona aniyo horseeda ambalyaan ku nidhiye hogaami buntland in badan soomaalina haybiyo goob alla wadaa heshiiye hogaami buntland in badan runtii sharaf weyn bay tahay inaan mar kale buurtino soo booqdo howlashan marar badan baan isugu nimid anoo musharaxaan maray laakiin markii ugu dambeysay madaxweynaha ahaa baan ka soo qabanay waxaan halkan maray anoo madaxweyne ah oo mashruuca maanta aan u nimid uu mugdi ku jiro oo qoos laga taagan yahay waxaan kaloo halkan maray iyadoo oo culays ka jiray oo ayaamaha soo furdaamismay miinadii lagu jabin lahaa dhagaxda lagu dhisay garacad qalabkii garacadna markaas uu maray maalintaas waxaan halka ku haynay riyo in dekad dhismi doonto inuu jidka dhismi doono wadada dhex marta maanta dhexdeeda oo dadku iska xilqaamay maalintaas 1 kiiloomitir baan ay dhisnaa soo saas ma ahayn markii dambe 3 bay noqotay mise 4 bay noqotay maalintaas horumarkii bilowday waxa maanta laga sheekeynayo dhalay in wadadii 65 kiiloomitir ismaheedii in badan uu dhismay intii kalena gacanta lagu hayo in dekadii garacad xilligaas oo aan fogeyn dhowr maalmood ka hor markabkii ugu horeeyay oo ku soo xirtay in wadadii magaalada dhex marayso bilicdeeda soo saartay inaan ka qayb qaadano kiiloomitir ku darno iyo GLBG-ga la keeno laba wado kalena way dhashay Soomaa degmooyinka waxay noqotay degmooyinka Puntland oo wadana bilicda fiican una population-ka badan wax lagu faano way runtii waxay udub dhaxaad u tahay difaaca iyo dhaqaalaha Puntland sidii gudoomiyadu ay sheegtay waana runtii xaqiiqda waa meelaha iska dhaxgalaan dhammaan wadooyinka ganacsi ee Puntland soo gala waxay afka u saaran tahay isku xirka gobolka mudug oo u jira xagga iyo gobolada kale ee Puntland xagga ka wada jira xaqiiqda marka loo hadlo dabcan culayska hadda la sheegay waa culayska abaarta ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa raxmad caamiya horta ilaahay un baa deeqi kara dadka raxmadiina meelaha qaybtooda waa ka bilaabatay inta dhimanna ilaahay inuu nasiyaan ka rajeynaa ilaahay idinkiis nabadgelyadu waa aasaaska nolosha muddadaas aan halka isku mareynay Puntland oo dhan waxa ka jira dhiilo amni meel kastana gaalkacyo waa laga cararay
kuwii ka soo cararee buurtila yimidna waagaas waa laga daba yimid waa dhex jiifay Soomaa nimanka ragga waagaas yaa waa la isugu yimid halka maanta waxaan u maleynayaa wadaad si fiican bay u mushaxaan gaalkacyo halka ayaandaas haddii casarka la tukadaa nasiib la lahaa maqrib markiisa dah runtii nabadgelyadaas oo shacab iyo dawladba isugu tageen kadib markay isla fahmeen sababta ay waagi hore ay u bariiqatana waxay ahayd isku halayn iyo in hay-adihii dawladda ee shaqadaas lahaa uu ku dhacay habac maalintaas aan xilka nimid ilaa maanta waxaan ku jirnay dubahabayn dhinaca ciidanka ah waxaan kaloo dhinac wadnay horumarinta inaan ka shaqeyno dadkan hadday nabad helaan ay helaan kaabayaasha nolosha sida halka laga sheegay nabadoonku sheegay dawlad waxaa laga rabaa waa adeeg iyo kaabayaal waxaa laga rabaa jid biyo iyo nal dadka inta kale iyagaa qabsada guryaha iyagaa dhista ganacsiga iyagaa samaysanaya adeegga kaleoo laga rabo waxaa u weheliya inay waxbarashada iyo caafimaadka iyo waxyaabaha asaasiga ay wax ka qabato laakiin waxa ugu muhiimsan marka la rabo in dawladnimadu ay hana qaado waa kaabayaasha horumarinaya bulsho inay horumarto oo kaabayaasha dhaqaalaha dekedaha garoomada iyo jidadka iyo biyaha iyo nalalka xooggeenu waa inuu halkaa fuulaa waddadan hadda laga sheekaynayo oo 65 kilomitir ah mashruuc EU-da bixisay buu ahaa laakiin inuu kaco wakhtiga iyo dadaalka lagu bixiyo ka sokow dawladda Puntland waxay ku bixisay 1.8 milyan soo saas ma ahayn horta yaa si gaabkii iyo khasaarihii ka dhacay loo daboolo oo shaqadu u dhaqaaqdo waxay kaloo dawladdu bixinaysaa ugu yaraan 8 milyan lacag ku dhow oo jidadkii dib loogu dayactiray buundooyinkii hadda inta mashruucan uu yahay oo uu ku ogyahay inta ka dhiman maalintii hore aan soo mareen waa rooneed intiina waa israacday hadda ilaa iyo buurtilla afkeeda xarxaarka waxaan u soo soconnay 3 saac iyo ziyaado waana wax 100 kilomitir meelahaas ama ka yar waxay ahayd inaan 40 daqiiqo ku nimaano halka markay u badato 1 saac inaan joognay marka waxa weeye wadooyinkii aad bay nooga burburaan haddii wadooyinku burburaan waxa cunna xataa way qaariyoobayaan baabuurtii la rabay inay maalin socoto meeqay soconaysaa 3 maalmood bay soconaysaa runtii waxa asaasiga ah oo aan uga mahad celinayaa reer Puntland inay fahmaan qiimaha wadooyinku leeyihiin oo magaalada wadada 4 kilomitir 3 kilomitir oo kamid ah iyaga dhistay wadada sida hadda gorodka sheegay intii ay halkay ku banjartay inta iyaga qalabka ilaalintiisa iyo meel rag joogaan bay ahayd rag iyaga hayay Soomaa ma sahlanayn shaqadii qabteen waxay dareemayeen intay qabteen waxa ka dheer oo gorod maanta u sheegaya oo isagu mooday isaga xilqaam kaliya inay ilaahay jireen dadka odayaasha reer Puntland markay arkaan waxay dhihi jireen war xilqaam sida loo dhaabo waxay ku ahaayeen advocate bay ku ahaayeen waa u doodi jireen marka taasaa wax sahlan ahayn waayo culayska ay leedahay arkayeen waxaan rajaynayaa maanta in lagu guuleystay dadkii ka shaqeeyay oo uu xusay wasiirada runtii waqtiga badan geliyay ee holaha guud iyo qorsheynta iyo maaliyadda oo soo dhiraandhiriyay hadday kor jirtay iyo dadkii wax bixiyay iyo hadday ahayd caqabadihii kale hor yaalaba waqti badan baa la geliyay maanta runtii wax lagu farxo oo lagu naaloodaa la joogaa markii injineerkii kormeeraya aan weydiiyey waddadan intee cimriyaysa wuxuu yidhi 30 sanana waa la hubaa 50 sanana waa gaaraysa haddii alla idmo marka ma sahlana shaqada halkaa ka socota waxaan rajaynayaa insha allah waxyaabaha kale oo baahiyaha ah oo hadda badan oo dee wax badan waaba intii aan joognay mashaariic badan baaba iska socotay soo maa hadda ama jidad ha noqoto hor leh ama iskuulo ama cisbitaal ama biyo iyo ama ceelal biyood haddee
waaga halka maraay waa ii duceysan anna markii labaad un baan ii duceeyaan u maleynaa waxaas khayrkaas ka socdo haddana waxaan rajaynayaa wax badan oo kaleeto way qabsoomi doonaan haddii ilaahay idmo dabcan dawladda saldhig baad u tihiin dawladina waa shacab hadduu shacabka ilaashadana dawladdaasi oo waxay noqotaa dawlad baraarta madaxdeedana markay wanaagsan tahay wax wanaagsan ka shaqaynaysan ku garab istaagta hadday wax ka qaldan yihiinna ku gacan siisa inay saxdo labadaba runtii diyaar baan u nahay waxaan ku faraxsanahay in Buurtinle ay kulligeed ka tahay iyadana waa farxad kaleeto waa abaalaan isku leenahay marka si gaar aan u tirsannaa runtii Buurtinle maxaa yeelay waxa weeye dad nool oo wax qabsanaya annaguna kuwaasaan rabnaa wixii wax qabsanayaan wax la qabanayna haddii ilaahay ka dhigo marka waxaan rajaynayaa inaan kaalintaas aad qaadateen annagana teenna aan qaadanno baahiyaha hadda ay gudoomiyaha gobolka iyo taliyaha qaybta oo markii ugu horeysay labaduba cusbaayeen safar hore bay ku timid iskana horay mar haddii 48 saac wax ku ballan qaadeen waxay ballan qaadeenna waa helaysaan insha Allah ugu horeyso dadka danyarta ah oo hadda aan gaari karin waxaan filayaa hadda raxmadu waa u dhawaato xagga loo hayaamay la tahay waxa la aadayaa jariiban iyo xagga Soomaa halka roobka ka da'ay insha Allah iyadana waxaan rajaynayaa sida ugu dhaqsaha badan inaad u qorsheysaan xuduudan furan oo wiilasheeni hadda waa nin malagiisi moodaa inuu ka ganacsanayo ya waxa ay ka ganacsanayaan ganacsi maaha arrintaas waxay u baahan tahay dawladdiina way joogaan gobolkii iyo degmadii iyo qaybtii arrintaas waxaa la rabaa gacan adag in lagu qabto arrintaas khamriga aad u xun weeye oo runtii deegaanadeenna ayaantan ku socota oo u baahan dadkan in laga wacyigeliyo shaqana laga qabto cid kasta oo sharciga ku xadgudbinaysana runtii aad baan uga mahad celinayaa gudoomiyihii maxkamadda hadallo qiimo badan oo halka soo jeediyey waxaa la rabaa qofkii sharciga ku xadgudba booliiskuna inuu qabto sida ugu dhaqsaha badanna loo maxkamadeeyo qof iyo laba xun haddaan aan eeganno dadkoo dhan baa wada xumaanaya soo maa qofka iyo labada xun aan iska qaban oon toosinno waxaa kaloo muhiima degmadan dhaqaale badan baa jira waan ogahay in xoogaa isbeddel uu ka jiro dhinaca canshuuraha dakhliga xoogaa waa kacay soo maa waa socdaa hadda horumar haddaa rabtaanna canshuuraha iska bixiya canshuurtuna waa muhiim canshuurtaas la ururiye weeye waxa wax lagu dhisaayo waxa dawladda la weydiinayo waa wixiinni weeye wax kaleeta ma aha gacan aaminay ku jirtaa ilaahay idankiis siday u kala muhiimsan yihiin baa lagu bixin doonaa dawladnimada runtii isbeddelka ku dhacay iyo waxa la qabtay gabdhihii halka hadlay oo suugaanta iyo tiraabtaba ku cabiray ayaa runtii aad uga warramay waan uga mahad celinayaa abwaanadana codsigeeda halkaan ka ballan qaadaya insha Allah maadaama halkay ka soo waxaan idin rajaynayaa insha Allah idinka dadkii wax la fari jiray ma tihiin degmo isku duuban oo dhaqan iyo maamulba is ogol oo runtii degmooyinka yar ee ay ka jiraan gudiyada horumarinta ayay tahay soo halka maaha gudiga horumarinta Buurtinle magaalooyin badan oo waaweyn kama jiraan runtii golahaas gudigaasna runtii shaqo fiican bay qabteen waa dadka magaalada bilay oo laamigaas iyo tabarucaadkaas dadka ka ururiyay dal iyo dibadda guul baan noo rajaynayaa dawladnimadeenna oo ilaashanno midnimada oon ilaalinno nabadgelyada oo ka wada shaqayno shacab iyo dawladoo isku xirnaanno wixii haddaan annagu isku xirannahay wixii caqabadoo naga hor yimaado waxay tahayba waa ka gudbaynaa haddii ilaahay daliilna waxa u ah inta hadda aan qabsannay isbedelada ka dhacay Puntland ilaa Gardafuug ilaa Saaxo iyo Tawfiiq meelaha ugu shaqeeyso mashaariic baa ka socda Puntland ciidamadii intaas oo dhan waxa lagu sameeyay reform madaxda hadda halka joogta qayb ka mid ah waxay isaga gudubtay Garacad Gaalkacyo Galdogob intaba mashaariic iyo qaar kormeeraysay qaar ay soo furayeen bay ahayd runtii dadaal aad u badan baa socda waxaan kaloo rabnaa dawlad iyo shacab kala socdo ma rabno inaan wada soconnaan rabnaa
waxaan kaloo rabnaa inaan isu dulqaadanno haddii shacabku markaas aan u aragno inuu mararka qaarkood meel ka dhunsan yahay inaan u degdegdayno inaan qabqablayno oon cadaadino ma rabno waxaan rabnaa inaan fursad siino ay ku cabiraan ra'yigooda ay ku ogaadaan xaqiiqada waxaad ogtay nidaamka dimuqraadiyadda loo gudbay nidaamka axsaabta loo gudbay qof walba marka wuu arkayaa qofka wanaagsan waxqabadka qofkii arkana waxa weeye isagaa go'aankiisa qaadan doona haddii ilaahay idmo qofku waxa la yidhi wax la waayo geelow ninkii waalan baa u dida soo maa dad ayaama wax iska heesaysan jira waa jiraan oo iska bartay waa la isaga daba tegayaa wixii khaldan dalkan hal dawlad unbuu yeelanayaa dawlado isku dhex jira ma yeelanayo haddii ilaahay idmo hal ciidan buu yeelanayaa ciidamo rag leeyihiin ma yeelanayo hal dakhli buu yeelanayaa dakhli ninba meel uu markaan imid waxaa jiri jira wax la dhaho nin walba 2% baa meel loo saaro curaaro wax la sheego maalintii ugu horreysaan ka takhalusno sababtoo jidadkaani waxaan ma aanan samaynin haddaan waxaas ku shaqaynayno ciidanno hebel leeyihiinna maalmihii ugu dabayaaqadeedii baa socotay kulli waa israacayaan dalka iyo shacabkaa leh dawladda wax inaga dhexeeya abwaanadii waxay tihi qofkii tagay oo la xusi doono waxaana lagu xusaayaa wax dadka kala dhexeeya iyo tala dadka ka dhexeysaan ka tagayna haddii ilaahay taladiina waa inii soo celinay oo idinkaa dooran doona madaxdiina oo qof iyo cod baan ku soo celinay hay-adihii dawladdana gacanta shacabkaan ku soo celinay oo dawladda u matalayso waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in dadka gobolka mudug inay aad u dareemeen isbeddelka dawladdaani ay keentay inay aad u dareensan yihiin waxaan gaalkacyo tagnay iyadoo 30 wiil magaaladii oo dhan ciroolay caamo ay baryaayaan oo wax ka qaban waayeen waxa aan wax ku qabsan karnaa waa sharci haddaa qofka sharci aadan ku maamulayn dee waa nin kula siman waxa ku samaynaysaa ya baryaa ku leedahay Soomaa hadduu wax garanayo damiir leeyahay baryada iyo dadka hadalkoodu aqbalay hadduu diidana waxa ku samayn kartid male laakiin ummaduhu dawladdu waxay u samaysteen inay yeelato awood ay ku meel mariso sharcigeeda waa intaas macnaha dawladdu marka waxaan rabnaa dadka gacanta maamulka dawladdu ku haya marka ugu horreyso horta ilaahay inay uga baqaan baan rajaynaynaa oo aysan ku takrafilin awoodda ilaahay gacantooda geliyey marka labaadna inay ummadda ugu shaqeeyaan oo ay waxa ay loogu dhiibtay ay ugu qabtaan nabadooda ka shaqeeyaan horumarkooda ka shaqeeyaan wanaagooda ka shaqeeyaan maxaa yeelay wanaagga dadkaaga aad ka shaqaysid waa wanaag adiguna aad wax ka leedahay wanaagga adigu wax ka leedahay wey marka waxaan rajaynayaa wanaaggaas inuu na wada deeqo wanaaggaasa na wada deeqaya jidka la dhiso ma nin baa la leeyahay marin yaa lama dhahay iskuulka la dhiso ma cid baa la leeyahay dhigan ceelka la qodo ma cid baa la leeyahay biyaha ka cabin dawladdu waa taas waxa caamka ka shaqaysaa laakiin intuu nin dukaankiisa galay miyuu iska daldalan karaa ma daldalan karo gaar buu u leeyahay marka waxa dawladda waa wax la wada leeyahay waxa la wada leeyahay hadda adigu maamulaysidna waa waxaagii oo aad maamulaysid marka nin kale hayana wixii baa wax ku leedahay oo iyada naftirkeeda waxba ka ilaalinaysa marka insha Allah waxaan aad u rajaynaynaa inaan wax badan dadka loo sheego dawladnimada maxaa yeelay waxaana soo maray waqti dheer oo runtii dalka Soomaaliya burbur badan soo galay iyo jiil fara badan oo xilligaas ku barbaaray oo runtii kala dambeynta iyo dawladnimadu ay runtii qaarkood ay sheeko u tahay hadday iyo inta dibadaha tagtay way arkeen laakiin intii dalka joogtay waxaan aad u rajaynayaa insha Allah in indhaha la furo oo dhinaca amniga waxaan rabaa in hoos loo eego buurtila guud ahaan waa amni إن شاء الله أد mahadsantihiin waqti intaan ka badan inaan la qaadanaan rajaynaynaa mararka dambeeyna maano mar kasto nimaanana waxaan arki doonaa hadii ilaahay horumarka ku talaabsanaysaan waan inagu bogaadinaynaa waan inaga mahad celinaynaa inaad dantiina ka shaqeynaysaan inagu mahad celinaynaa runtii waan ku mahadsantihiin odayaasha kaalintooda aad baan uga mahad celinayaa maamulka iyo shaqaalaha dawladda rag iyo dumarba kaalinta ay ku leeyihiin way ku mahadsan yihiin intaasaan rabaa inaan ku soo koobo
safar booqasho ah buu ahaa iyo kormeer aad baad u mahadsantihiin.